waxaan rabaa intaan gabagabayn marka inaan kelmad ka iraahdo arinta waayadan dambe socotay hadda mudanayaalna ay soo qaadeen oo ka hadleen oo ku saabsan Boosaaso runtii horay waxay u ahayd arintaasu arin lagu arko baraha bulshada iyo dad shakhsiyaada oo lagu cambaaraynayo looga been sheegayo magaalada Boosaaso airportkeeda iyo Puntland oo dhanba waxaad soo korortay institutionadii ama hay'adihii dawladda federaalka oo loo samaystay inay dalka u adeegaan oo ummadda midnimadeeda ka shaqeeyaan oo dawladnimada kobciyaan in hadda laga dhigay sidii barihii bulshada oo kale meel qayb ka mid ah dalka ay mas'uuliyadda u hayeen in laga soo barabugaamo waxaan jirin laga soo sheego laga soo caayo arintaasu waa arin gaf iyo qadafa magaalada Boosaaso waa la yaqaan taariikhdeeda waa magaalo Soomaaliyeed waa magaalooyinka ugu waaweyn Soomaaliya waa magaalo dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku soo hirteen markasta oo ay qaxeen ama laga soo bilaabo 91kii ama laga soo bilaabo kuwii yaran laga soo noqonayay waa meel nabada ma jirto haba yaraatee in laga duulo ma jiro xaram military oo ajnabiya ama ciidan ajnabiya oo yimaada ma jirto in laga weeraro airportka Boosaaso sanad iyo barkii la soo dhaafay iyo hadii xiran loo jeedo xirada ciidamada BNBF ugu yaraan 20 jeer ka badan baan galay anigu oo tagay xildhibaanada oo dhan baa arkay hadiiba laga yimaado la yiraahdo mas'uuliyadda ku tagto dadka shacabka baa taga airportka Boosaaso wardiisa iyo albaabka laga soo galay securitygiisu suuqa la yaqaana shirar baa lagu qabsadaa wuxuu leeyahay hoolal caadiga oo adeegyada shirarka ugu waaweynaa iyadoo loo dhawaanayo bilicda iyo sharafta uu leeyahay in iyadoo loo eegayo in lagu qabto oo dad shacab aan shacabka laga celin dhaawici ugu badnaa meesha laga dhoofiyay bay ka mid tahay meesha diyaaradu ka kacaan dadka shacabka oo baakinka baa la geeyaa oo si furan u taga meel military ama dagaal laga wado intaas oo dhan suurtagal ma ka noqon karto ma jiro ciidan ajnabi joogo ma jiro ciidan dibka wado jooga waa nabad waa ka jira horumar Boosaaso waxaan leenahay weligeed deelimayso iftiin baa ka baxay nabadgelyo toddobaadkii ugu dambeysay waxaad arkayseen in lagu qabtay toddobaadka dalxiiska runtii sawir kale oo anigu aan filayn bixisay aan ku bogaadinayno cidii ka shaqaysay iyo dadka reer Puntland oo halka ku noolba wax dhiba oo ka jiraan ma jiro bal waxay ka soo horjeedaa arintan aqliga caadiga oo dadka meel intaas oo dawladeed ka xigto oo intaas oo kuna meel jirta baahi keeni karta xataa ma jirto in halka laga aado hadii dawladda la maagayo oo dawlado ilaaqaad la leh ama sabood naga siiya ciidamada ama dagaalka Daesh oo dawladda Imaaraadka ugu horeyso dawladda Imaaraadka ugu mahad celinayna taageeraysiisa Puntland ciidamada qaar ka mid ah kabtaa waxaan la arago la maqal bay ka qabatay dagaalka hadda Daesh lagu la jiro hadii iyaga loo jeedana anagu cidii dadka Puntland iyo dawladda Puntland garab siinaya oo u mahadnaqaynaa garabkooda dawladda Imaaraadkuna aad iyo aad ugu mahadsantaa ma jecelin dad muslina ama cid kasta ha ahaadana ama reer Suudaan dib lama jecelin cidii wax kala dhaxeeyaan iyagoo qusaysa dhibka inuu Ilaahay ka saaraan rujaynaynaa dad aan ehelnahay oo dadka Soomaaliyeed abaal ku leeyahay laakiin waxa golayaasha Muqdisho ama golaha aqalka sare waan oran karo shaqadiisi waa gabay oo waxay ahayd doodaha Soomaaliya hadda ka taagan shaqadiisiiba qodobadii uu ku dhisnaayo dhan waa jaban baan hadda isleeyahay aqalka sare marka dhinac laga eego waa wax aan la aqbali karin oo nasiib darro aad u weyn oo dib u socodnimo weeye kuwa inta mas'uuliyad loo dirsaday
intii ay mas'uuliyadii iyo waajibkii dalka ilaalintiisa xataa haddii doon fajiraan la rabay inay qabtaan qaban lahaana soo maagaya oo soo barabugaamaya damiirkoodaasi waxba iyaga ka oran maayo inta garatay inay waxa saxda ah ka hadlaan oo inta golahan laga doortay waajibaadkooda loo diray oo iyagana waa bogaadinaya ugu horeeyo madaxweynaha hore Puntland Senator Cabdiraxmaan Faroole iyo Senator Golley iyo inta la midkaana waa bogaadinayna golahuna way noo xiran yahay aad iyo aad buu mahadsantihiin